لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. كذبت way beenisay qowmu luuطin luud qoladiisii almursaliina ambiyadii ilaahay kuwii la diray id waqti bay beeniyeen qaala uu u yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkood luutun luud ahaa alaa tattaquuna war alla miyaydan iska jirayn. innii anigu lakum waxaan idiin ahay rasuulun rasuulkaasoo amiinun aamin ah. fataqu llaha ilaahay ka baqo waatiicuunii yeela. wamaa as'alukum idinma weydiisanhaya calayhi korkiisa risaalada tabliiqeeda min ajrin waxoo ajri ah. in ajriya maa ajriya ajirkaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkiisa mooye wax kale ma ahaanin. ataatuuna warma waxaad u tegaysaan addukraana ragga oo min alcaalamiina caalamka ka mid aho watadaruuna ma waxaad ka tegaysaan maa shaygii khalaqa u idiin abuuray lakum idinka rabbukum rabbigiin oo min aswaajikum dumarkiina ah miyaydun ka tegaysaan buu rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. bal antum idinku qowmun qola tihiin oo caaduuna xadgudbay. qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam tantahi haddaada ka reebtoomin yaa luutu luudow warkan aad naga celin haysa ragga haddaadan ka reebtoomin latakuunanna walle ahaata min almukhrajiina kuwa la saaray. qaala wuxuu ihi innii anigu licamalikum camalkiina min alqaaliina kuwa yaraysan hayaan ka mid ahay. rabbi yaa rabbi rabbigayow najinii waxaad iga badbaadisaa aniga iyo wa ahli ahalkaygaba mimaa yacmaluuna waxay samaynayaan. fanajaynaahu waan badbaadinay isaga iyo wa ahlahu ahalkiisiiba ajmaciina dhammaantood ilaa cajuuzan habar mooye oo fi lghaabiriina kuwa la halaagay ka mid ah. uma damarnaa intaa dabadeed damarnaa waxaan halaagnay alaakhariina kuwii kale oon baabi'inay. wa amtarnaa waxaan ku roobaynay calayhim korkooda mataran roob. fasaa'a waxaa xumaaday mataru lmundariina kuwa loo digay roobkooda. ina fii daalika kaa dhexdiisa la aayatan baa ahaatay. wamaa kaana mana ahaanin akhar mintooda badani mu'miniina mu'miniin ma ahaanin. wa ina rabbaka rabbigaa lowe isagu alcaziizu ka qaalibka a weeye alraxiim ee naxariisa badan. kadabad way beenisay asxaabu laykati kaynta qoladeedii almursaliina kuwii la diray id waqtigii qaala uu yihi lahum iyaga shucaybun shucayb alaa tattaquuna alla miyaydan ka baqayn innii anuu lakum waxaan idiinahay rasuulun rasuul la soo diray amiinun oo aamin ah. fataqu llaha ilaahay ka baqo waatiicuunii yeela. wamaa asalukum idinma weydiisanaya calayhi korkiisa min ajrin waxoo ajra. in ajriya maa ajriya ajirkaygu ma ahan ilaa calaa rabbi alcaalamiina allaha caalamiinta rabbigooda korkiisa mooye. awfuu waxaad oofisaan alkayla miisaanka oo walaa takuunuu ha ahaanina min almukhsiriina kuwa dadka khasaariya. wazinuu waxaydun miisaantaan bilqistaasi almustaqiimi miisaanka toosan. walaa tabkhasu nnaasa dadka ha khayaamina oo ha khasaarinin oo ha dhicina ashyaahum ashyaadooda. walaa tacthaw ha fasahaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa oo ha soconina mufsidiina xaalaatihin kuwa wax fasahaadinhaya. kadabat qowmu luuطin ilmursaliin id qaala lahum akhuuhum luuطun alaa tattaquun. kadabad way beenisay qowmu luuطin luud qoladiisu almursaliina kuwii la diray. waxaan ku soo jiray tafsiirka qur-aanka
suuratu shucaraa waxaan soo gaarhnay aayadda 160 ayaan soo gaarnay. waxaynu ku soo jiray qisaskii ambiyada ilaahay. darsigu caawa wuxuu noqon doonaa nabiyullaahi luut iyo nabiyullaahi shucayb. waxay suuraddani ku dheeraanaysaa qisada nabiyullaahi luut iyo qoladiisii. ilaahay wuxuu uhi subxaanahu wa tacaala isagoo ka hadlaya nabiyullaahi luut, kadabat qowmu luutin almursaliin. luut qoladiisii nabi luut waxay beeniyeen rusushii ilaahay. nabi luut waxay isku waqti ahaayeen nebi ibraahim, qaraabana way ahaayeen. waxay isu ahaayeenba qaraabay ahaayeen. ma ilmo abti bay ahaayeen, ma ilmo adeer bay ahaayeen, waa badan yihin wararku, laakiin qaraabay ahaayeen. nebi ibraahim kolkii la diray luut baa rumeeyey. luut baa rumeeyey, kadibna isagana rasuul baa laga dhigay. wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala ka hadlayaa marka nabi luut qoladii loo diray way beeniyeen buu ilaahay. rusushii loo diray bay beeniyeen. oo markii saddexaad oo laleeyahay hal qolo rusushii bay beenisay. qowmu luut waxay beeniyeen risaaladii u xambaarsanaan nabi luut, fakaanamaa waa iyagoo kadabu rasula, marka kulligood beeniyey bay la mid tahay. hal rasuula qofka beeniya wuxuu la mid yahay rususha ilaahay oo dhan isagoo beeniyey. gooray marka beeniyeen, id waqti bay beeniyeen qaala uu yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkood luutun luuda halaa tattaquun, alla maad ka baqdaan. waxay beeniyeen waqtigii walaalkood luut uu dhimiriyey, sida quruxda badan ee naxariista iyo usluubtu ay ku jirto uu dacwada u gaadhsiiyey. walaalkood oo fi nasab ah, waa sida ambiyadii ka horreysay. fi diin ma aha, laakiin walaalkood fi nasab baa risaalada gaadhsiiyey oo wuxuu ku yidhi war ilaahay maad iska jirtaan subxaana wa tacaala, war alla maad ka baqdaan, macsiyadan aad samaynhaysaan maydun iska dhaaftaan oo war macsiyadan iska daayo oo tawxiidka aan la imid rumeeya, cadaabka ilaahay ka baqa, war iska ilaaliya cadaabka ilaahay. maxaa yeelay tilmaantaydu waxay tahay innii lakum rasuulun amiin. innii anigu lakum waxaan idiinahay rasuulun rasuul la soo diray, amiinun oo aamin ah. wuxuu yidhi rasuul baanahay oo ilaahay baa isoo diray subxaanahu wa tacaala. anigu fariinaan dusha isu saaray ma aha, ilaahay baa isoo diray subxaana wa tacaala. allah hadduu isoo dirayna waxaan xambaarsanahay sifatu lamaana, amaanadan aan gudan hayo ilaahay baa ii aaminay subxaana wa tacaala. aamin baanahay oo risaaladan aan idin gaadhsiin, waxna kuma darayo waxna kama dhibahayo, sida ay tahay baan idiin soo gaadhsiinhayaa. haddaba idinka maxaa idinla gudboon? fataqu llah wa atiicuun, ilaahay ka baqa oo ay ateeca. war intaad ilaahay ka baqdaan ood cadaabka ilaahay iska jirtaan, ood ciqaabta ilaahay iska jirtaan, wa atiicuunii, anigana ay ateeca. iyeela oo risaalada aan idiin keenay nabi ilaahay uu soo diray baan ahay, ha idiidina ee iga aqbala. ayib, maxaad uga cararaysaan oo ma xoolaan idin weydiisanaya, ma waxbaan idinka rabaa, ma jaah baan idinka rabaa, ma sharaf baan idinka rabaa? may, wamaa as'alukum calayhi min ajrin, wamaa as'alukum idinma weydiisanaya calayhi korkiisa tabliiqaas risaalada, min ajrin waxoo ajir ah. oo yaad wax ka rabtaa? in ajriya ajirkaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiin, caalamiinta rabbigooda mooye. wuxuu yidhi sabab maxaa idinku ah kufriga? risaaladan aan idin gaadhsiinayo waxba idinkagama rabo. war sida ambiyada ilahay bay lahaayeeno, nabi kasta un buu leeyahay. nuux baa yidhi, oo huud baa yidhi, oo muxuu ahaayey muusa yidhi, rususha ilaahay oo dhan, oo nabigeeni moxamed ahaa baa yihi sala allahu alay wasalam. war wax alla waxaan risaaladan aan idinkaga raba ma jirto, waxba idinkagama doonayo. xoolo idinkagama rabo, xile idinkagama rabo, madaxtinimo idinkagama rabo, jaah idinkagama rabo, sharaf idinkagama rabo. wax alla waxaan idinka doonayaa ma jirto. bas ammaanada ilaahay iisoo dhiibay un baan gudan hayaa un.
ammaanada un baan rabaa xilka inaan iska qaado wanaagga aad laga helayana idinka idin anfacaya ee aniga waxay anfacaya ma aha haddaba ilahay intaad ka baqdaan subxaana wa tacaala war ilaahay iska jira anigu cid aan wax ka raba ma jirto waan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala waxaan anugu wax ka rabaa oon ka quudaraynayaa oo aan anigu wax ka doonahayaa ilaaha caalamkan oo dhan rabbiga u ah addoon waxba kama rababa laakiin caalamkan oo dhan ilaaha rabbiga u ah ilaaha caalamkan oo dhan rabbiga u ah ilaahaasaa wax ka doonahayaa subxaana wa tacaala ayib wax la yaab la ood samaysaan baaba jiraba oo khalqiga ilahay usan aqoonin oo waa maxay ataatuuna ma waxaad u tagaysaan addukraana ragga oo min alcaalamiina dadka kamid ah cunsurka ragga miyaydu naaga ka dhiganaysaan watadaruuna ma waxaad ka tegaysaan maa khalaqa wuxuu idiin abuuray lakum idinka rabbukum rabbigiin oo min aswaajikum dumarkiina ah ficilka qofka sameeya ka waran bal arrinku saa ma ahe antum idinku qowmun qolaa tihiin caduun oo xadgudbay xadka waad ka baxdeen dhinaca kala joogtaan gaaladu asalkaba adduunyadan ilaahay markuu taagay subxaana wa tacaala waxaa jira afarta qaacido ee sharciga ugu waaweyn afarta qaacido waxaa ku jira qaacido la yidhaahdo jalbu lmasaalix wa dar-u lmafaasid wixii wanaag ah oo dhan oo la soo jiito oo sabab loo noqdo oo la keeno wanaagga waa la raadiyaa iyo kasoo horjeedkeeda wixii shar oo dhan oo la iska dheereeyo waa afarta qaacidee sharciga islaamka o dhan hoos oo soo galo bal halkaa qaacido buu diinka oo dhan soo galaaba sida uu sheikhulislaam ibnu taymiya alciz ibn cabdisalaam culimo fara badan ay sheegeen haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala masaalixdaa uu diinka u jideeyey waxaa kamid ah ilaahay wuxuu amray tawxiidkaba ugu horeeya tawxiidkaasi waa midho uu ka dhasho wax walba oo wanaag aba ka dhasha wax walba oo wanaag a tawxiidku ka dhashaa adduunka aakhiro wax waliba oo wanaaga tawxiidku ka dhashaa wax walba kasoo horjeedkiisa waa shirki waa gaalnimo wax walba oo xumaan ihina waxay ka dhalataa shirkiga saa darteed waxaa jira gaaladu cudur ay wada qabaan kulligood oo ah kufriga waa cudur waa mafsado gaaladu iyagoo cudurka ka koobanba haddana waxaa jira ambiyadanu ilaahay diray subxaana wa tacaala qolo waliba cudur kaleoo khaasa bay sii qabtay oo cudurkaa loogu sii daray qolada luud loo diray oo qowmu luud ah waxay qabeen gaalnimada kasakow cudur kale oo akhlaaq xumo ah oo caalamka wax yaqiinay iyo wax isticmaalay midna uusan jirin wax caqli leh iyo waxaan caqli lahaynba naflay uga horreysa ayna jirin ilahay sida qur-aanka uu ku qiray subxana wa tacaala oo waa maxay waxay yaqiineen raggu inuu ragga wax ka raadsado oo dumar ka dhigto ninku ninkii kale ee ragga ahaa wax ka raadsado cunsurka bimacnaa lab baa wuxuu aadayaa cunsurka kale ee lab adduunyadu maynan aqoonin wax uga horeeyeyna ma jiro qowmu luud bal xataa shimbiruhu cudurkaa ma aqoonin ma yaqaanaan xooluhu ma yaqaanaan shimbiruhu ma yaqaanaan caqliga wax xayawaanka aan lahayn xataa ma yaqaanaan laakiin iyagaa adduunka kusoo kordhiyey saa darteed baa waxaa run ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay gaalada xoolaha bal inay kasii liitaan in hum ilaa kal ancaami bal hum adal sabiila waa xoolahoo kale laakiin iyaga kasii liita xoolaha ritigu riti ma aadi karo dibigu dibi ma aadi karo wanku wan ma aadi karo ma dhici karto orgigu orgi ma aadi karo iyagu marka cudurkaasi qabeen cudurkaasoo ah foolxumo la sameeyo meesha ugu dambaysa cudurkaasu marka nabi luud kala hadlay wuxuu yidhi su-aal buu weydiye wuxuu yihi
war ma ragga aad u tegaysaan oo caalamka ka mid ah macnuhu waxa weeye ma ragga bilow aadanka abaad idinkoo bilow aadan a guursanaysaan oo ku kaaftoomaysaan la idinmana abuurin qadiyadda iyada ah waa kow waxaad gudub ma waxaad ka tegaysaan ilaahay wuxuu idin abuuray oo dumarka ah ilaahay adduunyada wuxuu ugu talagalay mid lab iyo mid dhadig weliba mucaamalo sharci ah inay dhex marto bes oo xalaal ah sida xoolahoo kale fasax ma aha bisharti waa inuu mid lab iyo mid dhadig yahay oo shuruudo badan leh waa inay isku diin yihiin muslim iyo muslim waa inay yihiin waa in akhlaaqdooda la fiiriyo waa in diinkooda la fiiriyo waddo dheer weeye waa arrin adag dhinacaasi walidaalika saa darteed baa wuxuu yidhi ma waxaad ka tegaysaan ilaahay wuxuu idin abuuray oo dumarkiiniya maxaad tihiin marka anaa idiin sheegi waxaad tihiin idinku weliba reer magaalnimo iyo sharaf baad u haysataan bal antum qawmun caaduun qole xadgudbay ayaa tihiin sharciga islaamku wuxuu la dagaalamay xumaanta iska dhaaf lab wax ka raadiya iska dhaaf xataa dhadigoodka iyo labka ba sharciga islaamku wuxuu meel dheer saaray zinada wax la yidhaahdo qur-aankuna uu cabiray in aan loo dhawaan karin sabab kasta oo keeni kartana sharcigu ood buu saaray sabab kasta oo lagaga badbaadi karana albaabka u furay walidaalika saa darteed ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala kolkuu nabi luud nimankan iyagoo gaalo ah ba kolkuu laa ilaaha ila allahu kala hadlay su-aasha labaad ee uu weydiiyo akhlaaqdooda ahayd meeshii xumayd markaase wuxuu ma raggaad aadaysaan intaad dumar ka tagtaan wuxuu yidhi bal antum qawmun caaduun kuwa xadgudbay baa tihiin shayga uu sharcigu u magac bixiyo weligaa magac kale looma bixiyo waxaa loo bixiyey waa reer magaalnimo waa xorriyad waa qofku siduu doonayo waa siduu jecel yahay isaga u taalla soomaaliduna waxay ba yidhahdeen ba waa reer magaalnimo la gaadhay waa reer magaalnimo la gaadhay bay yidhahdeen ilahayna wuxuu leeyahay bal antum qawmun caaduun marka caaduun baa waxay noqotay reer magaalnimo la gaadhay caaduun baa waxay noqotay reer waa cunsurka soomaaliga aad buu xadgudub badan yahay aad kala har ma leh ama meel qaladu isu raaci ama wanaagga hadduu alla ku xajiyo subxana wa tacala waddo kale ha dhammale waddo kale ha dhammale ayib walidaalika saa darteed baa labadan xukun zinada iyo qowmu luudnimada marka la fiiriyo horta mid waliba waa zino laakiin sharciga xadka uu zinada ka oofiyey isaga lagama oofiyo waa ka kululya waa ka adagya liannahu isagu waa akhlaaq xumo liannahu waa wax caqliga xataa ka fog waa caqliga ka fog waa wax xataa xayawaanku ay garanhayaan inuusan waxani wax saxa ahayn qoladaasi marka reer magaalnimo iyo adduunka wax wanaag kusoo biiray meehe waa caaduun waa xadgudub wey bimacnaa waxa caaduun ay u yihiin qoladani sharcigii bay gudbeen xaqii bay gudbeen curfigii iyo dhaqankii bay gudbeen caqliga wanaagsan wuxuu keenayay bay gudbeen caqligu wuxuu keenayay bay gudbeen gaaladu waa laba nooc gaalo caqli leh oo wax yaqaana oo wax fahansan iyo gaal dee isaga dhan ba caqligiisii u dhintay usa waxbaba ku jirinba kulligood waxay isla ogol yihiin in ay qoomuluudnimadu qalad tahay isla ogol yihiin laakiin ilaahay waxaan uusan soo dejinin ee la dhigtay ee dadka loo sheego ayaa wuxuu ka hor imaanayaa hadday dhahaan waa qalad saa darteed waxay ku qasbayin inay yidhaahdaan waa saxan yahay laakiin kuwooda caqligaloo dhan waa ogyihin waxaan inuu qalad yahay bal iska daa waxay qireen si kasta kolkay u fiiriyeen maamulkan addoommadu isku maamulaan waxay soo saareen ugu dambeynta qalad inuu yahay samada unbaa dhulka laga maamuli karaa wax kale laga maamuli karo ingiriiskan uu ahaa sanado badan ka hor baa nin dawladdan kamid a ingiriiska oo baarlamaan kamid a lagu eedeeyey inuu kufsi sameeyey waana qoladii sharci dejinta ee la rabay inay wax saxaan
nin marka kamid ahaayo dee nin weyn ahaa baa buug buu qoray buuggaa wuxuu ku qoray oo uu yidhi dhulkan maamulkiisa samada unbaa laga maamuli karaa buuri wax samada laga soo deji laakiin wax dhulka laga sameeyey laguma maamuli kara buuri ma ilaalin kara buuri wax dhulka laga sameeyey laakiin waxaa ilaalin kara buuri samada wax laga soo dejiye baa ilaalin kara walidalika saa darteed baa ilaahay wuxuu yihi bal antum qawmun caaduun wadamada muslimka ah iyo dadka islaamka iyo shucuubta islaamka waajib waxa ku ah waajib inay mujtamacooda iyo dadkooda iyo diintooda ka ilaaliyaan akhlaaq xumada iyo edab darrada iyo zinada kana meeshii lagu maqlo hilfaha loo qaado biduuni raxma hilfaha loo qaado hilfaha loo qaado laakiin kuwii baarlamaankaaba waxay yidhahdeen waa reer magaalnimo reer magaalnimo kolkii la yidhi maxaa uganda ansixi soo maahayn beri la lahaa uganda waa caadi bay yidhahdeen waa reer magaalnimo weye bay yidhahdeen reer magaalnimo waa cajaa-ib weye wallahi soo hadalkaa fiican ma odhanin colaad baa halkaa ka bilaabatay ma annagaa reer magaalnimadanadii iyo ilbaxnimadanadii aanu gaadhnay baabad ka hor imaanaysaa ood leedahay waa qalad inuu rag wax ka raadsado qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam tantahi haddaadan ka reebtoomin warka yaa luutu luudow latakuunana waxaad ahaanaysaa min almukhrajiina kuwa la saaray waad baxaysaa waxay yidhaahdeen luudow haddaadan sheekadan iyadaa haddaadan joojinin ragga inaan u tagno haddii aadan caydan aad nagu caayaysa iyo aflagaadina dagaalkan aad nagula dagaalami haddaadan dhaafin dhulka wada joogi mayno annagaa u hadhayna adna waad baxaysaa waan ku saaraynaa kuwa la saaray oo magaalada laga saaray baad noqonaysaa weya bimacnaa waxaad kasoo horjeedaa ilbaxnimada iyo reer magaalnimada iyo horumarka baad kasoo horjeedaa waa qasab in marka lagaa qabto dadka in lagu dhaafiyo nabigiina qaala wuxuu yihi inii anigu licamalikum camalkiina min alqaaliina kuwa yareystay baan kamid ahay wuxuu yihi walle luud wuxuu u yihi camalkan aad samaynaysaan waxaan ahay kuwa yaraystay weliba u cadhaysan qaaliina waxaa weeye cadha ii dhimani ma jirto camalkan aad samaynhaysaan waa yaqyaqsi waa camal xun waxaan gaadhi doonaa horeyna aan usoo maray isagoo nabigu baryootamahaya oo le haa-ulaai banaati in kuntum faaciliin gabdhaha muslimiinta buu sheegahayaa ila waa rasuul loo soo diray gabdhaha iyago ro kuwa gabdhihii war ilaahay baa idin abuuray xataa markii la rogayay malaa'igtii loogu talagalay inay iyaga rogaan oo hunguri ka galay ina haa-ulaai dayfi falaa tafdaxuun war ay ceebaynina hay fadeexaynin isagoo le xataa waxaan gaadhi aan soo maray isagoo ku ooyaya miyuusan idinka mid ahayn hal qof oo wanaagsani kulligood kolka isku raaceen xumaanta bal waxaan soo marnay isagoo oo le tiir weyn baan salka saaray tiir weyn baan salka saaray isagoo le baan gaari doonaa baan horan usoo marnay suuratu huod baan aada ugu soo marnay qadiyada iyada ah markaasaa wuxuu ihi walle camalkan aad samaynaysaan kuwa u cadhaysan baan ahay camalkan aad samaynaysaan eed ku farxaysaan eed ku qosqoslaysaan camalkan anigu raalli kamiihi waan yaraystay oo waan dhibsaday oo waan nacay qalaada hadda waxaa laga wadaa min alqaaliin kuwa u cadhaysan baan kamid ahay waa camal xun oo ilaa qashin ah oo waan ka cadhaysnahay waxaan aad samaynaysaan ayib qaala wuxuu ihi inii anigu licamalikum camalkiina min alqaaliina kuwa u cadhaysan baan kamid ahay rabbi yaa rabbi rabbigayow marka najinii ilaahu iga badbaadi aniga iyo ahli ehelkaygaba mimaa yacmaluuna waxay samaynayaan albaabadii markay kasoo xidhmeen ee uu ka quustay qoladan in aan wax khayri ku jirin tawbana ayna kuwa kasoo soconin buu habaartamay ilaahay buu gacanta u taagtay subxaana wa tacaala yaa man yaraa ma fi lanaami wayasmacu waxaa jira dhibaatada ugu dambaysa markii ay ku gaadho albaabadu ay kaasoo xidhmaan rijo kale male qofku inuu gacmaha kor u taaga mooye kolkuu ka quustay iimaankoodii
iyo weligood inaynan rumaynaynin buu habaaray wuxuu yihi ilaahayow kuwan iga badbaadi aniga iyo ehelkaygaba bimacnaa waxaa ka horeysa rog ilaahayow xataa waxaan gaari doonaa waa berigaa la rogayaa baa la yihi markaasuu aad arrintaa wax fog bay la noqotay alaysa subxu biqariib ka soo maray alaysa subxu biqariib subax misan mid dhow ahayn bimacnaa waa dhibaatada waxaad arkaysaa dhibaatada loo geystay nabi ilaahay oo ummadan la wanaag inuu amro la amray oo hortiisa foolxumo iyo faaxisho lagu samaynayo oo martidiisii la raadsanayo weliba ilaahayo wuxuu ihi waxaad iga badbaadisaa aniga iyo ehelkaygaba qoloodan waxay bimacnaa macsiyadan ay samaynhayaan cuquubada ka dhalanaysa waa la rogayaa ilaahu iga badbaadi buuri ilaahayow iga badbaadi waxaa jira qofka muslimka ah nabigu wuxuu ku tilmaamay sal lla alay slam fariisuu leeyahay fariisadu waa maxay qofka muslimka ah waa qofka feedhigoon ee wax fahma ee fikira laakiin mid un dhagaha iska lalmiya ma aha oo aan waxbaba dan ka lahayn oo sida awrta riti weyn oo xidh caleen la geliyo iska daaqa ma aha walidaalika saa darteed baa adduunyadan kolkaad aragto macsiyada oo lagu samaynhaya meeshaad joogto waxaad ka naxdaa khatar baa kugu soo foolay ilaahay raalli kama ah subxaana wa tacaala laabudana ilaahay waa qabanhayaa mar dhowna way noqon kartaa mar dheerna way noqon kartaa waanaad fikirta marka ilaahu iga badbaadi waan arkaa kolley meeshan waa meel sii socote ilaahu i badbaadi waa inaad tidhaahdo wixii baa hadda lagu samaynayaa meeshan inaguna dhex fadhinaa ilaahay aniga iyo ehelkaygaba inta iraacdaba ehelka laga wada ee mu'miniinta ah ilaahu naga badbaadi fanajaynaahu waan badbaadinay isaga iyo wa ahlahu ehelkiisa ajmaciina dhammaantood ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waan badbaadinay isagii iyo ehelkiisiiba waan badbaadinay kulligood waan badbaadinay isaga iyo intii raacday iyo dacwadiisa waxaa ajiibay iyo reerihiisi waan badbaadinay ma kulligood may hal ka reeb ilaa cajuuzan habar mooye oo taasi xaggay aaday hiya iyadu fi lgaabiriina hiya iyadu fi lgaabiriina kuwa qoosay bay kamid noqon kuwa halaagsamay ee hoogay ayay taasi kamid tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi luud waan badbaadinay ehelkiisiina waan badbaadinay intii raacday iyo ehelkiisiiba waan badbaadinay waxaan ka ahayn buu rabbi subxaana wa tacaala uu yihi habarti waxaan ka ahayn qur-aanku waxaa cajiib ah qofku markuu reer saxa yahay zawj buu isticmaalaa laakiin markayna ama waxba dhalin ama mid barakaysan aynan ahayn inkaar qabta ay tahay imraa la isticmaalaa imrao weligaad islaantaasoo laleeyahay zawjadiisa indhaha saari maysaan weligiin indhaha saari maysaan ayib bal ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi waanu halaagnay kulligood habar waxaan ka ahayn baa la yidhi habar waa cajuuza duq gabowday habar waxaan ka ahayn oo taa xaggee la geeyey fi lgaabiriina kuwa halaagsamay bay taasi kamid tahay qabriga waxaa la yidhahdaa kuwa libdha bimacnaa waxa weeye qoladan wuxuu ilaahay u ciqaabay ciqaab adag oon caalamka wax la ciqaabay jirin 3 cadaab buu ilaahay isugu daray subxaana wa tacaala 3 cadaab dhulka oo lala gooyo dabayl lagu sii daayo dhagax lagu garaaco 3daas ilaahay isugu daray waxaan gaari doonaa walmu'tafikata ahwa faghashaaha maa ghashaah qaryadahay deganaayeen oo dhan intii la gooyey oo samada loo sii qaaday basaa loo gambiyey hal mar intay dhexda soo socdeenna dhagax baa lala dhacay saasuu rabbi subxaana wa tacaala u ciqaabay leanna waxay sameeyeen wax aan welig la samaynin allana wuxuu ciqaabay ciqaab aan welig la ciqaabay ayib rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ihi habartaasi laakiin kuwa haabiriinta abay ku jirtaa ee hoogay ee halaagsamay halka waxaad arkaysaa nabiyullaahi luut waxaa la halaagay xaaskiisii adduunyada xoola wax waa la isu tari karaa guri la-aan hadday ku haysana waa lagu siin karaa qaraabadu waa iscaawin kartaa wixii adduunye ah laakiin mar hadday qadiyadu iimaan noqoto haddii la isku khilaafo xagga iimaanka idina cid ma caawin karto aabbahay baa weli ahaa
iyo aabbahay baa sheekh ahaa iyo aabbahay baa caalim ahaa iyo meel fiican baan kasoo jeedaa iyo reere awliyaanu anagu nahay oo nalama daaro ma shaqaynayso. hadday shaqaynayso waxay u shaqayn lahayd cajuuzatu luud bay u shaqayn lahayd, nuux bay u shaqayn lahayd oo wiilkiisii iyo islaantiiba la isku daray, labadiiba la isku daray. ayib walidaalika waxay u shaqayn lahayd nebi ibraahim oo aabihii dhurwaa intii loo bedelay hortiisa birta dhiigga loogu daray, dhegta loo daray. saa darteed caqiidada waxaad ku caawin kartaa ilmahaaga iyo ehelkaaga inaad amarto ood toosiso, laakiin mar haddii ay noqoto aakhiro waxba kuma bedeli karta adug waxalla waxaad ku caawin karto ma jirto mar haddaad isku khilaaftaan iimaanka. laakiin iimaanka haddii la isku raaco waa la is caawin karaa, waa la isu ducayn karaa, waa la istaageer, waa la isu ergeyn karaa, nafcuga soo gaari karaa. ilaahay wuxuu yihi uma intaa dabadeed damarnaa waxaanu halaagnaa alaakhariina kuwii kale. ilaahay wuxuu leeyahay kuwii kale kolkaanu isagii ehelkiisii badbaadinay, habarta aan ehel ba ahayn mooye waanu badbaadinay bu rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay. wa amtarnaa waxaan roobaynay calayhim korkooda mataran roob, oo roobkaas waa noocee fasaa-a waxaa xumaaday mataru lmundariina kuwa loo digay roobkooda, waxaa loogu roobeeyey alla xumaayey. ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala intaa kadib kufaarti waanu halaagnay halaag kan oogu daran, dhagaxyaan baanu cirka kaga soo daadinay sida roobka oo kale ah. ilaahay wuxuu leeyahay wa amtarnaa calayhim matara, dhibicdu siday isu daba socoto fiiriya roobku markuu da-ayo, dhibicdu dhinac kasta haddaad fiiriso wax isku yaalla ma aha, oo biyo intay kor kasoo daataan sida kolkay meeluhu dareerayaan oo kale maaha, waa dhibic kala go-go-an. laakiin haddana markaad fiiriso way isgarab yaacaysaa kulligeed, waa saf sa aad moodin isgarab socoto. bimacnaa dhagax baanu sida roobka oo kale kaga dhignay bu rabbi subxana wa tacala u leh. waa markii kor loo sii waday ee lasoo waday, amaa dhulkaa lala gooyay qolada. ayib roobkii kolkii lagu matareeyey, maadaama roobku wax fiican yahay baa ilahay wuxuu daba dhigay roobkani tilmaanta uu leeyahay fasaa-a mataru lmundariin, kuwa loo digay alla waxa loogu roobeeyey alla roobkoodu xumaa bu rabbi subxana wa tacala. waa dhagax in roob lagaga dhigay, dhagax in roob lagaga dhigay. marka faa'iidada ku jirta waa maxalaaga kuwa ah. ilaahay wuxuu ihi ina fi dalika la aaya wama kana akharuhum mu'miniin, ila fi dalika kaa dhexdiisa la aayatan aayad ba ahaatay, wamaa kaana ma ahaana akharum intooda badani mu'miniina kuwa mu'miniin ah. ilaahay wuxuu leeyahay intooda badani, laakiin mu'miniin ma aha buu rabbi subxaana wa tacaala u leeyay. intooda badani ilaahay ma rumaynayaan, bimacnaa qureish oo markuu qur-aanku soo degay lagula khitaabay intooda badan ma rumaynayaan. dadkuna waa saasoo inta badan iimaanka horeyna mayna u raaci jirin, gadaalla weligood ma raacayaan. waqtigii nabi maxamedna intooda badani iimaanka bayna raacin. wa ina rabbaka rabbigaana waata marka qadiyad walba maxaa ugu dambaysoona aayadan, wa ina rabbaka lahuwa alcaziiz raxiim. wa ina rabbaka rabbiga lahuwa isagu alcaziizu ka qaalibka weeye, acdaadiisa ka argoosta, alraxiimu midka naxariista badan weeye. ilaahay wuxuu leeyahay subxana wa tacala laba qolana soo sheegnay, kuwa la halaagay iyo kuwa la badbaadiyey. ilaahay naxariista, ilaahay horta awoodiisu way ballaadhan tahay oo ilaahay cadowgiisa waa ka argoostaa. ilaahay waa naxariis badan yahay, addoommadiisa naxariis ugu naxariisto oo ballaadhan ilaahay waa leeyahay subxaana wa tacaala. halka aan kaga baxno qadiyadii nabi luud. kadabad way beenisay asxaabu laykati kaynta asxaabteedii almursaliina kuwii la diray, id waqtigii qaala uu yihi lahum iyaga shucaybun shucayb alaa tattaquuna war miaad ilaahay ka baqdaan, inii anigu lakum idinka rasuulun rasuul baan idiinahay amiinun oo aamina. qadiyadii markaa halkaa ku dhamaatay nabiyullaahi luut ayaa halkan waxaa ka bilaabanaysaa qadiyad gaaban oo hal mar un la dul maray. qur-aanku waa saas weligiiba. waa maxay? waa qawmu shucayb qoladani. ilaahay wuxuu ihi laakiin ku tilmaamay qoladan oo magaca qur-aanku u isticmaalay la yidhaahdaa asxaabu layka, rasuulka loo dirayna waa shucayb. aykada waxaa la yidhaahdaa waa dhulka kaynta ah ee xidharhka ah ee muxuu ahaaye geedaha badan ay ku yaalaan. maxaa soomaalida u taqaanaa dhulka kayn soo maa? asxaabul ayka waa kaymaha kuwii degi jiray, dhul kayn abuu ahaa.
geedaha iska hoos baxa. Shucayb bayna beeniyeen markii aanu u diray risaalooyinkii ka horreeyay oo dhanna way beeniyeen maadaama Shucayb beeniyeen. waqtigii Shucayb uu ku yiri warmaad ciqaabta Ilaahay ka baqdaan, shirkigiina iyo kufrigiina iyo gaalnimadan warmaad alla ka baqdaan, rasuul la idin soo diray baana inaan idin hanuuniyo oo hidaayada iyo wanaaga aan idin ku yeero. war xaafid baanahay oo waxa alla uu ii waxyoonaya waan ilaalinhayaa. war ciqaabta iyo cadaabka Ilaahay ka baqo oo waxaan idin ku yeedhay ee hanuunka raaca si wadada saxda aad ugu hanuuntaan. ducadayda raaca iimaan baan idin ku yeedhayaa si Ilaahay subhanahu wa ta'ala jaza wanaagsan oo alla idin siiyo subhanahu wa ta'ala. كذبت way beenisay asxaabul aykati kaynta asxaabteedu almursaliina kuwa la diray. id waqti bay beeniyeen qaala uu yidhi lahum iyaga Shucayb alaa tattaquuna war alla maad ka baqdaan. asxaabul ayka inay qowmu Shucayb tahay aayadda caddaysa waa aayadan. ayib innii anugu buu ihi lakum idinka rasuulun mid la soo diray baan idiinahay amiinun oo aamin ah. fattaqu llaha ilaahay ka baqo oo wa atiicuunii aniga iyeela. الله كبقى يا طيعة. وما أسألكم إذن ما ويديسنا يا عليه كركيس الرسالة من أجر وحو حوله تبليغ مذكركم إن أجري أجر كي وما هانين إلا على رب العالمين عالمين ربي قود مويه. وآيات أن سومرينون مركزتنا وانسومرينا. أوفية الكيل ميزانك أو ولا تكونوا هانين من المخسرين ضدك قوة خسارية. إلهي وحو إليه سبحانه وتعالى وحو لوروي كلكو شعيب قلدي وارين هيي قلدني صومينا قلدي هور صومرين عذر بي قبين ليلة هذا أخلاق حما صوما كون العذر كري قبين ليلة هذا بخيل لما إيا خيانة دون وعذر هذا قفك كدعا كوة أو وحن خيانة دون وامحي وعز دبا مرمرين وحزدوا مرين قلودني waxay ahaayeen kolkay dadka wax ka gadanayaan si fiican bay wax uga miisan jireen iyagu laakiin markii wax laga qaadanayo way khasaarin jireen dadka alaab jeexjeexan iyo weelka wax lagu miisayo oo yar iyo weelkii oo kor loo soo ciriiriyay iyo isagoo oo gudaha wax lagaga shubay iyo dadka markay wax ka qaadanayaan sida ugu saxsan bay uga qaadan jireen way badin jireen ribix iyagu laakiin markay dadka wax ka gadanayaan wax laga qaadanayo ay khasaarin jireen. tayib saadarteed bu iyagana akhlaaqdoodii ka hadlay wuxuu yiri awfu ofiya alkayl miizanka oo wala takunu haanaan min al-khasiriin kuwa dadka khasaariya. wazinu waxad miizantan bil qistaas al-mustaqim miizanka cadaaladaha ee toosan. miizanka isagu ba cadliga ah ee toosan dadka miizan sax ah wax kaga miizanta oo toosan oo waxooda ha ka nusqaaminina oo waxooda ha ka khasaarinina. wala tabkhasuha khasaarinina annaas dadka ashaah waxooda. baqsiga waxa la yiraahdaa qofka af Soomaaliga markii matalan bal lagu dago wax fiican bad wadataa markaas lagu caayay markaas waxaan wax jiraba ma aha uu dhacay taariikhdiisu waa kan wax jira ma walaga furanaya indhaha lagu madoobeynaya. caamayn oo kale way caamayn wala igu cameeyay iyagu dadka markay wax ka gadanayaanna way harowsanayaan markay wax ka gadayaanna way camaynayaan. markaas rabbi wuxuu wala tabkhasu an-nas dadka ha ka baqsina ha ka khasaarinina ashyaa mashaadooda baqsi Soomaali xitaa baqsi way isticmaashaa loo isticmaalaa. wala ta'thawa us'unina fil ardi dhulka dhaxdiisa mufsidiin xaalatu kuwa fasahaadiya. dhulkan ilaahay baa iskale ilaahay baa islaahiyay warhoy dhulkan kadeetaha fasahaadinina buu ku yiri. dhulka fasahaadinina oo khayaanaha ku fasahaadinina waxa la yaab leh labo inta badan sharcigu fasaad u isticmaalaa waa qatliga dilka iyo khayaanada. sababtu waxay tahay qofku haduu ka shakiyo qofka kale inuu naftiisa goynayo cadow ku yahay waxa mar walba gelaysa iska difaac iska ilaali waligiiba cadaalad ka sugi maayo. baqsigana khayaanada waxa ka dhalanaya mujtamaca waxa la amray in mujtamaca la ururiyo oo mujtamacu is aamino laakiin khayaanadu markii mujtamaca ay dhaxgasho maxaa dhamaanaysa amaanadii maxaa kala furfuranaya mujtamaci baa kala furfuranaya mujtamaci baa kala aamin baxaya waana waxyaabaha saacada qiyaamo lagu garto
kolka artaan mujtamac oo kale irdhoobay oo kala cararay waa saacadda qiyaama wixii lagu garanayo weeyaan saacadda qiyaama wax lagu garto weeyaan saa darteed buu wuxuu daba dhigay dhulka ilaahay fasaad ha la soconin macnuhu waxa weeye u fiirsado sharciga ajnimadiisa khayaano markaa dhulka dhexdiisa la socoto fasaad baad la socotaa dhulkaad fasaadinaysaa waxba maa inaad tidhaahdo waxbaan fasaadinayaa laakiin mar hadday waxaanaad samaynaysa khayaano yahay macnaheedu waxa wey mufsid baa tahay ilahayna wuxuu leeyahy walaa tactaw fi lardi mufsidiina bu rabbi subxana wa tacala u leeyahy wallahu subxaana wa tacaala aclam